kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale dhammaan asxaabteena la socota channelka Qaraax Tube kusoo dhawaada wararka ugu dambeeya saaka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda la wareegay kuwa hadda la dalbanayo iyo xidigaha suuragalka ah inay ka tagaan kooxooda. Manchester United ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in difaaceeda dambe Delay Blind uu ku laabtay Holland wuxuuna ku biiray xidigan kooxda kubadda cagta Ajax. Lacag dhan 18 milyan ayaa lagu gabagabeeyay qiimaha xidigan. Madaxweynaha Lyon Jean Michel Alos ayaa wadahadalo cusub la furay Liverpool oo ku aadan wadahadalka ciyaaryahanka lagu magacaabo Nabil Fekir 24 sano jirkan ku basameeyaha ayaa raba Klopp inuu soo qaato. Luton Sports ayaa sidaas warisay. Chelsea waxay la diyaar tahay Gonzalo Higuain inay ku gabagabeeyaan 53 milyan sidoo kale waxay doonayaan Juventus difaaceeda dambe Daniel Rugani sida Evening Standard ay qortay. sidoo kale Manchester United ayaa u diyaar ah 30 milyan inay bixiso si u hesho difaaca dambe ee kooxda kubadda cagta AC Milan ciyaaryahanka lagu magacaabo Leonardo Bonucci. Daily Express ayaa sheekadaasi daabacday. Manchester United ayaa ugu dambeyn ku guuldareysatay Gareth Bale 29 sano jirkan Welsh ayaa la filayaa inuu furo noqdo Real Madrid. Tababaraha cusub ee Madrid Julian Lopetegui ayaana qorshihiisa ku darsaday Pedro ayaa sidaas daabacday. Manchester City waxay la kulantay Real Madrid 80 milyan ay ku doonayaan ciyaaryahanka reer Croatia xidiga lagu magacaabo Mateo Kovacic. Sky Sports ayaa sidaas warisay. Chelsea waxay wada hadalada Monaco ayaa CSKA Moscow ka doonaysa 22 sano jirka qadka dhexe ka ciyaara Alexander Golovin kaas oo sidoo kale la xiriirinayo Chelsea 22 milyan ayaana lagu bilaabi doonaa gorgortanka xidigan. Arsenal tababaraheeda cusub Unai Emery ayaa isku diyaarinaya inuu safkiisa ku darsado Danny Welbeck 27 sano jirkan iyo sidoo kale David Ospina 29 sano jirka Colombia kuwaas oo shakil geliyay mustaqbalkooda garoonka Emirates. Chelsea waxay aqbashay in ciyaaryahanka reer Ivory Coast ee qadka dhexe Jeremy Pogba oo 22 sano jir ay ka soo qaataan kooxda Sassuolo 3.5 milyan ayaana xidigan lagu qiimeeyaa. Atletico Madrid ayaa doonaysa AC Milan iyo ciyaaryahanka reer Croatia Nikola Kalinic oo 30 sano jir ah inay soo qaataan. Waad ku maasantahay daawashada videogan fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad daado subscribe mahadsanid.